saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena aan kusoo qaadanayno types of RCC columns noocyada kala duwan ee columnska inagoo markaasi ka eegayna type of reinforcement nooca birta loo isticmaalay. Nooca koowaad waxaa la yidhahdaa tied columns. Waa maxay tied columns? Waxaa lagu dhahaa columnyada noocana waa columnyada kuwaasoo longitudinal bars waa biraha columnka ku jira, okay? Waa birahan ku jira columnka ayaa waxaa lagu yidhi enclosed waxaa lagu xiray with closely and uniformly spaced si aad isugu dhow sidoo kalena space isla egna uu u dhaxeeyo lateral ties ayaa la isku xiray, okay? Yacni hadda haddaan kusoo koobo warkaas waxaa waaye birta longitudinalka waa birtan dhaadheer waa, okay? Oo columnka ku jirto, okay? Oo taagan, okay? Birtaas ayaa waxaa lagu xiraa lagu dhahay si oo isku dhow oo closely ah sidoo kalena spacekooduna uu isku uniform yaho uu yacni iskula eg yahay lateral ties. Ties waxaa la dhahaa biraha marka isku haayo linksna waa la lahaa, okay? Biraha isku haayo longitudinal bariska, okay? Biraha marka way isku dhow yihiin marka si loo fiiriyo spacekooduna waa uniform oo waa isla eg yahay, okay? Mostly, okay? Waa haddii kan 100 millimeter uu yahay kanna 100 millimeter uu noqonaa, okay? So marka intaas waaye waxa lagala jeedo tied columns, okay? Marka laga hadlayo reinforced concrete columns waa kuwa ugu badan ee la isticmaalo waa, okay? Waxaana la qiyaasaa 95% columnyada dhismaha loo isticmaalo inay yihiin tied columns, okay? Tied columns waa columnyadan waa, okay? So marka tan maxaa waaye waa longitudinal reinforcement, okay? Kanna maxaa la yiraahdaa transverse steel oo ku dhawaaya sidoo kale lateral ties na waa, okay? Yacni kan hadduu longitudinal dhinaca dheer u taagan yahay oo columnkeena u taagan yahay kana dhanka kale transverse ku ah ama perpendicular ku ah waa, okay? So marka section ahaana waa kana ha, okay? Columnyada columnka rectangle oo ujeedaa afartiis biro wataa birtan waa tie waa ku sheegay midaana maxaa la yiraahdaa longitudinal bars, okay? In isla fahmin ayaa rajeynina. Nooca labaad waxaa la yiraahdaa spiral columns. Noocyadan columnyada ah waxaa lagu dhahay birta longitudinalka ah, okay? Birta hadda isla soo barana waayo oo taagan, okay? Ee columnkeena ku jirta ayaa waxaa la iskula xiraa lagu dhahay si continuous ah erigaas muhiim waa si xiriir ah macnaha, okay? Kuwa hore xabad ahayd, okay? Waa kala go'sanayeen, okay? Balse kuwan waa continuous wound spiral reinforcement waa bir wareeg ah qaabka helixiska ama spiralka oo kale ayay u wareegay macnaha birtan waa continuous bir kala go'an ma aha, okay? So marka spiral reinforcementiga waxay siinaysaa marka columnkeena waxay siinaysaa in ay ka support garayso lateral, okay? dhinac macnaha columnka markii axial load soo saaro culays markii la soo saaro somehow columnka marmarna waa markuu short yahana bicrashing u fail garoobaa markuu dheer yahay oo long column uu yahana buckling. Marka waxyaalahaas ku imaan karo oo failure ka ah way dib dhigaysaa, okay? Halkaan aan ku arkaynaa way dib dhigaysaa wixii failure ah sidoo kalena supportna way siinaya way ka caawinaya awoodaha dhinaca uga imaanayo oo uu sababay culayska axial loadka ah ama culayska compressionka ah, okay? Isla aragna marka spiral column waa kana, okay? Birihii longitudinalka ah waa kuwanaha, okay? So marka maxaa waxa isku xiran oo isku haya waa maxay waa spiral waa, okay? Waa qaabkaas spiralka ah formkaas helixiska ah ayuu ku soconaya, okay? Qaabkaas waa marka spiral column sectionkii waa kanaha marka, okay? Birtii longitudinalka ah waa kuwanaha, okay? Spiralkina waa kanaha falaartan kuugu tilmaamo, okay? So marka noocaas maxaa la yiraahdaa spiral column, okay? Nooca saddexaad waxaa la yiraahdaa composite columns, okay? Columnyada marka composite-ka waxay ka kooban composite ama maqasho waa combination of two or more things, okay? Wax oo la isku keeno waa marka wuxuu ka kooban yahay lagu dhahay horta kow structural steel, okay? waa yacni bir steel ah waa ma aha reinforcementiga anaga aan naqaano oo caadiga ah birtan longitudinalka camal ma aha waa steel section caadi ah, okay? Ama mar waxaa jiri karto cast iron column oo bir ahaan camal loo soo shubay bir column ahaan loo soo shubay oo diyaarsan, okay? Marka maxaa ku hareeraysan concrete shubaa ku sii hareeraysan, okay? Sidoo kale waxaa jiri karo longitudinal bariskiina steel jiraan birihii aan soo aragnay inay jiraan way dhici kartaa inay la socdaan, okay? Sidoo kalena spiral reinforcementiga waa birtii hadda aan kuusoo sheegayo spiralka ahayd, okay? Way dhici kartaa marka intaan way wada kulmi karaan, okay? Composite columnska waxaa si aad loogu isticmaalaa lagu dhahay markii la joogo truss structure, okay? Structureka trusska, okay? Si looga fogaado markaas corrosion ku dhaca ama daxalaysi ku dhaca birteena, okay? Noocyadan marka columnyada ah waxaa lagu dhahay waxay leeyihiin awood ku filan, okay? Sidoo kale cross sectionkeedu ama areadooduna way yar tahay, okay? Si markaas ay noo siiyaan lagu dhahay good fire resistant performance marka laga hadlayo in dabka ay u dul qaataan ama iska caabiyaan aad ay ugu fiican tahay oo way ku wanaagsan yihiin, okay? Haddaan isla aragna marka composite column waa kana ha, okay? Marka maxaa ujeedaa marka tan maxaa waa steel tube waa, okay? Waa tubo bir ka samaysan waa concrete-ka ku shuban oo ku jiro, okay? So marka qaabkan way dhacay marka maxaa la isku keenay marka bir oo steel ah
oo steel tube ala keenay iyo concrete okay sidoo kale meesha maxaa u jeedaa steel section okay sectionka maxaa waaye waa steel warshada lagu soo sameeyay okay soo marka maxaa u jeedaa geesahan waxa ugu jira maxaa waa concrete okay meeshaan uu kugu sheegay steel I section waa section kana I ah maxaa la jira marka birihi longitudinalka ahay iyo linkiski soo marka taasna way jiri kartaa noocan kale marka maxaa la yiraahdaa waa composite column ina isla fahanay ayaa rajeynayna saaxiibayaal